بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا صاحب بيال مقالة الأسعانود يا حرونتا كميل جاركا يا مامولكا SSC خاتمو وحا كدعية كلان كدن hogaamiyaha ama madaxweynaha Soomaaliya ee fadhiidka ee musuqmaasuqa iyo qabyaaladda iyo eexda iyo sidoo kale cadaalad darradu ay markaasi biyo dhigtay ee Xasan Sheekh Maxamuud. daawadayaal dhawaan waxa ogsoon tihiin in dadka deegaanada SSC Khaatumo dabcan si ay u sifeeyaan dhulka inta ay ka degan yihiin Sool Sanaag iyo Cayn SSC Khaatumo ayaa la raaciyay in waxa ogsoon tihiin muddo xogaa yar ka hor ay dowladda federaalka ay sheegtay inay maamul kumeel gaar ah u aqoonsatay dadka reer oo muddo 2 sano ah oo ay awal ayagu madaxweynaha kumeel gaar ah ay sameysteen waa firdhiye ay aqoonsatay dowladda federaalka sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi isla markaana halgankii ay wadeen ay ku tixgelinayso laakiin waxa la ogaaday daawadayaal siyaasad iyo dhagar inuu damacsanaa Xasan Garguurte ujeedkuna uu ahaa in tiraba 400 oo maxaabiis ah oo ku jira gacanta reer Khaatumo inuu markaasi ka furto oo uu uga furo Muuse Biixi Cabdi maxaabiistaas dabcan waa la sii deey doonaa waana muwaadiniin Soomaaliyeed inkastoo ay ku jireen dambiyo dagaal oo ay dhibaato culus ka geysteen magaalada Laascaanood laakiin xilliga iyo goorta dadka deegaanka ama maamulkooda iyo garaadadooda xilliga ugu habboon tahay iyaga sii deey doonaa sidoo kale waxa jirtay maxaabiis walow tiro ahaan ay markaasi 20 iyo wax yar ay yihiin ugu badnaan ama ay ka yihiin oo dhowr iyo 10 ay yihiin laga hayay dadka reer Khaatumo ama beeshii hartiyeed ee halka ka diririsay arinta laakiin muuqaalka aan soo qaadanay oo dabcan Hargeysa madheer ku xiran arinta laakiin muuqaalka aan soo qaadano xasaasiga waxay tahay maamulka horta SSC Khaatumo waxa uu la mid yahay waa maamul kumeel gaar ah kumeel gaarnimada waxa soo martay maamulka Jubbaland ee hadda maamulka buuxa ah xilli bay kumeel gaar ahayd waxa kale oo soo martay maamulka Galmudug oo dastuurka xataa marka la eego laftigiisu aan markaasi lagu salayn 2 gobol laakiin rabitaanka dadka intiis ogolaa ayaa loo dhisay maamulkaas oo dabcan waa Mudug Barki iyo Galguduud Soomaaliya waxa ka jirta marka Xasan Sheekh uu ka shaqeynayay dhismayaasha maamuladaas Hirshabelle oo kale uu ka shaqeynayay laakiin SSC Khaatumo dibindaabyo iyo hagardaama ay ku hayaan waxa kale iska daayay wuxuu ku amray wasiirka sportska iyo xukuumaddiisa waxay amreen in xataa kubaddi waa waxa ugu yar ee markaas reer SSC Khaatumo ay ka qayb gali lahaayeen kubadda xataa in laga reebo xulkii SSC matalaha Puntland oo kale waxaan ognahay khilaaf culus inuu dhaxeeyay Xasan Sheekh iyo Dani isla markaana halkaas ay kaga hartay koobka tartanka kubadda SSC Khaatumo oo lagu soo diray maadaama maamulku meel gaar ay tahay ayaa laga reebay oo waliba mar inta la yiri laga reebina waa been ee soo diyaar garoobay xulkoodii iyo dhalinyaradoodii oo maalmo dhan diyaar garoobay ayaa hadda waxa lagu wargeliyay inay ka soo qayb galeen koobka taa waxay keentay xataa ciyaartoydii ka soo jeeday gobolka Gado ee Jubbaland matalaha inay isaga haraan xulkii Jubbaland oo ay sheegaan maadaama la dibindaabiyay dadka reer SSC xaqna u lahaayeen inay ka soo qayb galaan koobka inaanay ayaguna aadeen madaxweynaha Soomaaliya waxa lagu leeyahay markii hore xataa aqoonsigan 2 sano Muuse Biixi ayuu kala tashtay oo isaga ayaa raali uga ahaa wuxuu yiri maxaabiista ayaa nimanka kaga soo sideynayay ee 2 sano aqoonsi ah markii horena waxaan ognahay madficiye jubti iyo dhibaatada ku socotay iyo hagardaamadii Xasan Sheekh marka nimankan dhulbahanto wuxuu arkaa inay yihiin qabiil la yiraahdo Daarood waxa ugu weyn oo la dagaalamayo waa sida waa haybta ay yihiin iyo waxa ay ka soo jeedaan isuma arko madaxweyne Soomaaliyeed ee waa madaxweyne qabyaali ah waana madaxweyne markaasi حقدي يا بغضي يا حاسنمو أي بيا دكتي dadka reer Khaatumo waa ma dadka reer SSC Khaatumo waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin muwaadiniinta kale Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool ama guud ahaan Soomaaliyeed sida u nool yihiin oo noolaadaan waxa sid mudan maamul goboleedyada kale marka la soo dhisayo kor ayaa dadka laga keenay oo dabcan waxa weeye waa la soo bacriminayay laakiin maamulka ayagu dagaal bay u soo galeen 3,000 4,000 oo qof baa uga dhaawacmay 1,000 qofoodna uga dhimatay hooyooyin baa ku waayay wiilashoodii aaba hadda maalin tubuuhood la ku soo dhaweeyay muxuu ahaa firdhiye 2 wiil oo dhalay labadaba dagaalkii kaga dhinteen maalin hore dadkani dad rabitaankooda iyo calankooda buluuga ah iyo calankooda dhoodimeerku ku yaal faraska ee Khaatumo dad u dagaalamay ay ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya hadii madaxweynaba uu rabo in la dhaho hadii uu rabo in waxa weeyaan muxuu ahaa la shaqeeyo hadii ay rabaan shacabka Soomaaliyeed garab istaagaan miyuu hagardaamay laha ninkan shacabkan idoo caano lisay malaha waan ognahay oo shacabka Muqdisho hadda maalin walba dhulalkoodii hantidooda ayaa laga boobayaa oo maamooyin waxa weeyaan nimankoodu ay jiidaha hore ku dhinteen ee la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab
ayaa hadda dhulalkoodii boosaskoodii shaladaan ugu dambeysay xoog looga saaray oo dumul jadiid meel walba gafana dhiig la weeyaan oo dadka ku naaxaysa dadka Soomaaliyeed dhibaatadooda ku naaxaysa arinta marka ay soo diinayeen waxa weeyaan damaca SSC Khaatumo ma hor istaagi karaa ama dadka deegaanada SSC Khaatumo Xasan Sheekh ma hor istaagi karaa su'aasha oo kooban waa maya dadkan waa dad 8 bilood la dagaalamay maamul 30 sano ka badan isna meel iska saaro iska celiyay sidoo kale waa dad kumanaan kaga dhaawacmeen kumanaano dhinteen halganka ay maanta ku jiraan ama ay wataan tira ahaan iyo cudud ahaan iyo hub ahaan qalabka maanta ay haystaan waa qalab waxa la dhihi karaa Soomaaliya meelaha ugu badan ee hubku yaalo ay SSC maanta ku sugan yihiin oo qori aan laga soo helayn waxa ka dhiman kaliya waa diyaaradii hagardaamada madaxweyne Xasan Sheekh oo xataa Ingiriisku qayb ka yahay inuu ognahay inay shirar iyo kulamo ka yeesheen waxa ay markaasi tusaysaa kaliya in macnaha ninkan inuu yahay nin xun oo dadkii Soomaaliyeed ee hadda maanta dhihilaa madaxweynaha ayuu iska reebayaa oo laad iska reebayaa hadii dawladnimo iyo maamul laakiin wax weyn uma soo siyaadin doonto ayaa la leeyahay damaaciga isku daygiisa sidoo kale aabahan hadda ay u jeedaan madaxweyne Firdhiyo la fadhiya wiilkiisi laba wiil uu dhalay midna markii hore uu dhintay midna waa dhaawac maalin hore uu dabay dhaawac u dhintay sidoo kale dadka reer SSC Khaatumo waxay qaateen manhajka waxbarashada Soomaaliya waxay qaateen astaantoodii calankoodii cawaale waxay qaateen calankoodii buluug ahaa ee markaasi farasku ku sawirnaa ee ka turjumaya halgankii daraawiish ay dadka iyo dalka u soo mareen maamadan oo kale waxay ka mid tahay dhibanayaashii waxa ay horey kalshaale ugu weysay sida ay sheegtay qayb dhan oo qoyskeedii ka mid ahaa sida xaajigeedii walaalkii sodogeed iyo dad badan halkan iyo wiil ay markaasi waardi ahayd dagaalkii ugu dambeeyay maalintan waxay ku weysay wiilkeeda curad oo COVID carruur ka tagay dadkani marka iyaga iyo maamulka Somaliland cid isku khasbi karta ma lahan Somaliland dadkan waxay kula dhaqantay siyaasad dil qaybi oo xukun hagardaame dhibaato ah sidoo kale dalkii jamhuuriyadda Soomaaliya ee Somali Republic ee waqooyi koonfur ayuu siyaasad ahaan musabix kala qaybinaya kanina mideyntii dadka Soomaaliyeed isku hayntooda ayuu ka turjumaya marka ninka hagardaameynaya waa nin aan waxa weeyaan habeen dhalan maalin dhalan ama habeen aan jirin maalin aan jirin waxbana kama uu qaadi doono ayay ku falaqeynayaan dadku hadda marka waxa la leeyahay shirar ayaa ka dhici doona magaalada Laascaanood arrimahan looga tashanayo iyo wixii laga yeeli lahaa daawada sidaad u aragtid dhanka hoose fikirkaaga nagula wadaag siina faafi muuqaalkan waana mahadsantiin